asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. soo dhawaada meel kastoo aad igala socotaan iyo si kastoo aad noo daawanaysaanba. janaalkaad nagala socotaan waa cabdi official vlogs. maanta barnaamijka idiin wadnaayo waa barnaamij aada iyo aada u xiiso leh. maasha allah, waxaynu idinla wadaagi doonaa walaalshan soomaaliyeed oo micnaha u baahan in loo kala kiciyo janaal. ayaynu barnaamijkeeda ka hadli doonaa. janalkeedana halkan ayaynu soo saari doonaa haddii uu ilaa yiraahdo. waxaa kale oo cusub sheeko aan soo tibinayay, hore u tibin jiray, laakiin maalmahan aan xoogo ka mashquulay ayaa iyadana rabaa inaan qeybteedii labaad caawa amba galabtaa daawataan. hadda uu ilaaha yiraahdo soomaali weyne meel kastoo aad daawanaysaan naga joogtaanba, waxaan idin leenaha kusoo dhawaada. janalka waa janalkeeniya. subscribe saar, la comment, share, intaas baa ka hilmaamina. insha allah billahi karim waad mahadsantiin kusoo yaaca janalka. aniga qofka idinla hadlayana waa cabdi. qisada ayaan bilaabi doonaa. marka hore abaayo janalkeeda waynu kala kici doonaa. hadda ilaa yiraahdo anaa ugu horeeya insha allah billahi karim oo aan kala kici doonaa. waxaa jiray gabar soomaaliyeed ayaa ila soo wadaagtay qiso aan la yaabay. qisadaas ayaan rabaa insha allah billahi karim inaan idiin soo tabiyo. qisadu waxay ku dhacday gabar soomaaliyeed, waa hooyo soomaaliyeed oo dalalka yurub dal kamida joogta. markaana markay soomaali joogtay jaamacad iyo waxbarasho soo dhameyday maasha allah. halkaas oo jaamacadda magadiganiisii iska jeclaadeen wiil walaalkeeda. wiilkii markay jeclaadeen ayay siday u joogtaybay way soo tahriibtay. gabadhii yurub ayay soo gashay maasha allah. markay yurub soo gashay ayaa waxaa dhacday wiilkii oo afrika ku dambeeyey anagoo sheegaynin halka uu joogay. marka ayay gabadhii maadaama jaceyl kala dhexeeyay sharcigii hore ayay ka qaadatay. sharcigii magalisiiyey way baxday, afrika ayay tagtay. waxay rabtay wiilkii in ay lasoo wadaagto waqtina lasoo qaadato, guurkeedana ay halka kusoo dhameysato. laakiin wuxuu sameeyey wiilkii markii gabadha uu xagga ugu tagtay ayuu gabadhii is arkeen ayuu wuxuu sameeyey gabadhii ayuu wuxuu ka qaaday fiidiyoyaal qalad ah oo micnaha jirkeeda uu banaan yahay maadaama ay jecel leeday wiilka. hore ayuu sawiradaas uga hayay gabadha siday sheegtay, ayaduna ma aysan ogeyn because wuxuu ku yiri sawiro fiican ayaan ka qaadayaa macaani, waan ku jeclaa jirka qeyb kamid a itus. markaasna waxay tusay xabadkeeda intay yurub joogto waaye. xabadkeeda markay tusay iyo labada liman dhanaan markay tustay ayaa xaaladu waxay noqotay inuu sawir fideoga wiilka u hayo. sidii uu hayay fideoga ayay gabadhii wuxuu ku sameeyey waxa la yiraahdo lock out, uga baxay heshiiskii. taleefonkii blog ayuu saaray, lambarkii wuu ka bedeshay. wuxuu sameeyey oo kale maxaa la dhahaa facebookina wuu ka bedeshay, maxaa la dhahaa blogna wuu saaray. gabadhii wiilkii way weysay. markay wiilkii weysay ayay maalmalmaa kamid aydoo social mediaha dhex wareegaysa ayay waxay aragtay fiideo laleeyahay waa gabar soomaaliyeed oo jirkeedii gadatay. video ay ku qoranta oo looga dhigay micnaha descriptionka ayay aragtay. hadday kale ku siisay videoga waa ayadii wejigeedii, waa xabadkeedii, waa liima dhanaanteedii. laa ilaaha illa allah maxamed rasuulullah. waxaynu leenahay gabdhaha soomaaliyeed yaan lagu ciyaarin. gabdhaha soomaaliyeed waa waalidkeen, waa walaalaheen, waynala dhasheen, waynu dhalnay, way dhali doonaa. hadduu ilaa yiraahdo waynoo dhexeen oo kale. intaasoo dhan ayay gabadha isugu darsan tahay. marka gabadhii saas ayay xaaladeedu mareydaa. waxayna tiri tala halaysiiyo soomaali weynay dhammaantiin. waxaan idinka codsanaya inaad talada gabadhaas lasoo wadaagtaan oo aad soo siisaan, halkaana aad commentiga kusoo yaacisaan insha allah billahi karim. anaguna waan soo tibi doonaa. waxaynu kale oo rabnaa inaanu ka hadalno dadkii commentiga soo qoray maasha allah. waxaa ugu horeeya caddi ee ugu horeysa. caddi aad iyo aad iyo aad u mahadsan tahay walaasheen. gabadhaas waardi ayaa unahay maasha allah. waxaan leeyahay thank you. waan aragnay maxaa la dhahaa commentigaada waan aragnay, waana kaga mahad celinayna sidaad noo garab istaagtay. thank you ay ku leenahay. waxaan kaloo aragnay nin la yiraahdo my friend kulli wuu is yaqaanaa. magaciisa halkaan ayaynu ka sheegi doonaa.
waxaa la yidhahdaa kuwataro waxaan leenahay aad iyo aad ayaad u mahadsantaha saaxiib sidaad commentigaada noogu soo qortay mar walbana waxaan ku leenahay thank you so much aad iyo aad ayay noola socotaa channelku waa channelkaaga saaxiib hore u wada ayaan ku leenahay share la comment share inta baa ka hilmaamin asxaabtadana la wadaag ayaan ku leenahay thank you waxaynu kale king something qof ladhahay ayaan arkaya magaca maxasuusto isigana waxaan leeyahay thank you walaal wada mahadsantaha sida subscribe commentigaada noogu soo qortay thank you magacyada markala xasuusto dhammaan waxaan u mahadcelinayaa dadka commentiga noo saaray channelka thank you maxaynu hadda ka hadli doonaa walaasheen soomaaliyeed oo macnaha barnaamij aada iyo aada u xiisa leh soo wada amba soo bandhigdigiisi bilowday maanta channelka halkan ayaan soo sheegi doonaa magaciisana hadda ayaan idiin soo sheergelin doonaa insha allah kusoo yaaca channelkan waxaa la yidhaahdaa Queen Diamond siday u qoran tahay waa garan kartaan Queen Diamond ha la aado ha lagu yaaco subscribe la saaro like and comment share la dhaho asxaabtana la wadaago waa channel aad iyo aad u xiiso leh gabar Soomaaliyeed oo walaasheena oo halka wadnaha magaceedu noogu qoran yahay iska leh waxaynu leenahay kala kaciyo Queen Diamond waxay soo wadaa barnaamijyo idin xiiso geli doona inaba caadi ma barnaamijyada soo wado waxaa kamid ah isqurxinta gabdhaha Soomaaliyeed oo dabiici ah jirkaagaad maranayda wax ka dhafuqaya malahan wax ka dhaqay wax macnaa ka goyahay jirka malahan wax ka halayahana malahan korkaaga maasha Allah hadeed wajiga qaar ku leedahay wajiga qaaraad ku leedahay way kaaga fuqi doonaan maasha Allah channelkaasna hala booqda ayaan leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan oo balana videogan xiga thank you